erayo aan badnayn ka odhan doonaa kelimadaasi ku saabsan alfawzu fi lxayaa. fawz, success, guul waa eray casrigan dambe aada loogu celceliyo, dhagihiinuna in badan maqlaan. ama dhaqaalaha laga warramayo, ama cayaaraha laga warramayo, ama wax kale laga cid baa guulaysatay baa in badan maqashahay. su-aasha aan rabo inaynu isweydiinaa waxa weeyaan, goormuu qofka bini aadamkaa la odhan karaa wuu guulaystay? guushase maxaa lagu qiyaasaa? muxuu yahay miqyaaska dhabta ah ee fawska ama se guul successka maxaa lagu qiimeeyaa? haddaynu nidhaahno nolosha ayuu ku guulaystay qofku, noloshu waa intee? ma intan sanawaadkan adduunka la joogayaa, mise waa aakhiro marka lagu daro noloshu qofku noolaanayo o dhan? ma lagu qiyaasi karaa guusha maalka iyo mansabka iyo magaca iyo maamuuska uu qofku helo? kelimada fawz fi luga waxay idhahdaan waa najaatun min marhuub wa taxsiinun limarguub bay idhahdeen. waa waxaad ka cabsanayso ka nabadgeshid iyo waxaad raadacaynayso oo aada heshid. aw aldafaru bilkhayr maca xusuuli salaama bay idhahdaa. waa inaad wax hesho wixii khayrka ee wanaagaad raadinaysay, dhibtana ka nabadgeshid. idan qofka bini aadamka ahi goals tiro badan buu leeyahay, ama ahdaaf tiro badan. mar kasta uu hadaf xaqiijiyaba waxa la yidhaha wuu guulaystay. ardayga hadafkiisa koowaad waxa weeyaan inuu iskuulka dhameeyo ama jaamacadda dhameeyo. maalintuu shahaadada soo qaato wuxuu leeyahy waan guulaystay, imtixaankii waan dhameeyey, waan guulaystay. ninka siyaasiga waxaa laga yaabaa hadafkiisu inuu yahay boos siyaasiya inuu gaadho. maalintuu kursiga fuulo waxaa la odhanayaa xisbigaasi ama ururkaasi wuu guulaystay. laakiin dhab ahaan goormaynu odhan karnaaba qofka bini aadamkii nolosha ku guulaystay? waxaan o dhami waa ahdaaf marxaliya. waxay ku gabagaboobaysaa inaynu idhaahno noloshii waad guulaysatay iyo noloshii waad khasaartay, wax ka dhexeeyaa ma jiraan. simple goalskan marka la isku wada daro hadaf baad nolosha ka leedahay. nolosha hadafkeeda haddaad asiibto oo meesha aad u socotay aada gaadhana waad guulaysatay, haddii kalena lama guulaysanin. walidaalik su-aasha waxay noqon kartaa, oo hadafkaan nolosha ka leenahay markaa muxuu yahay? ma inaynu cunno cabnaaba? ma in shahaadad la qaataaba? ma in lacag la helaaba? ma in magac iyo maamus la helaaba? life burbouskaagu muxuu yahay? hadafka aada leedahay, goolka aada nolosha maxaad u noosha? inaad maxay xaqiijiso? qofka bini aadamku waa inuu hadaf leeyahay, meel uu socdo uu rabo inuu gaadho. qof u nooli inuu wax cunaa ma jiro. noolo waa wax cunoo soo toosoo kac, dabeetana 60 sano markaad gaadho xabaasha ha lagu geeyo. that's not a life. nolol maaha taasi, qiimo ma samaynayso. waxaynu isweydiinaynaa markaa, hadafkaynu nolosha ka leenahay waa maxay? si markaynu ku guulaysanana aynu idhaahno hebel noloshiibuu ku guulaystay, marka la waayana aynu idhaahno hebel noloshiibuu ku khasaaray. ila waa labadaa mid un. haddaad nolosha hadaf ka leeday, meel aad u socota hadday jirto, meeshii markaad gaadhana waxaan odhanaya waa guulaystay. markaad gaadhi weydana waxaa la odhanaya wuu guul daraystay, muu guulaysan, success ma gaadhin. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay goorta la guulaystaa goortay tay. wuxuu kaloo inoo sheegay nolosha tan iyo hadafka laga leeyay wuxuu yahay. waxaa laynoo sheegay dadka inta guulaysatay iyo inta khasaartay. qur-aanka intaasoo aayadood baa ka soo arooray oo ka warramaya alfaa'izuun. intaasoo aayadood baa ka warramaya alkhaasiruun. وانا معناها دبته ونولش ليه مركز لبضاسي كلا جرت ربي سبحانه وتعالى مركه
nolosha iyo hadafkeeda iyo waxoo dhan iyo guusheedaba miqyaas baa loo yeelay. يعني noloshu haddaanu jirin thermometer ama barometer ama wax lagu qiyaaso haddaanad haysanin, yani guriga dherarkiisa waa imisa, waa inaynu haynaa waxaynu ku qiyaasno. markaynu haysano miqyaas la saaro ayaynu isla garanaynaa dherarkiisu intuu yahay. laakiin haddii nin waliba isha ku eego wax saxa soo bixi mayso. marka wax la qiimeynayo wuxuu doonaba ha ahaadee waa inuu jiraa waxaad haysato oo barometers aad leedahay markaad kaatigarayso waxaas waa la qiyaasi karaya, waa la gaari karaa inuu jiro. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kullu nafsin dhaa'iqatu lmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سورة آل عمران بقول سيدتني يشن بقول سيدتني يلي لبدا آيادود يسكحي ربي وحليه سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت wax kasta oo nool geeru dhadhaminaya muntaha alxayaati dunya weeyaan baa la leeyahay. inta doonta joog way dhamaanaysaa. wa innamaa tuwaffawna ujurakum waxa laydin wafeynaya laydin dhamaystiraya. adduunka waa laga yaabaa wax yar yar oo min camalika inaad dhadhamiso, sawaan kaanat positive iyo negative kay doonaysa ha noqoto. waxyaabihii aad shaqaysay wax ka mid ah hadday qadhaadhaydna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid ah inaad ka soo dhadhamisay, hadday macaanidna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid ah inay soo dhadhamisay. laakiin waxaa la yidhi taas iyadu way dhammaanaysaa, absolutely waa dhammaynaysaa. laakiin waxaa lagu dhammaystirayaa baa la yidhi camalkoo dhan wixii aad qabatoo dhan abaalmarkiisa waxaad wada helaysaa. inamaa tuwafaw wafaa baa lagu isticmaalay. waxaa laydiin oofinaya laydiin dhammaystiraya ujuurakum yowma alqiyaama baa ilaahay yidhi maalinta qiyaame. alxayaati lukhra, xayaati lukhra aakhire markaynu gaadhno nin walba shahaadadiisa la siinaya. qalinjabintaadii adduunka intaad joogtay imtixaan baad saxaysay, papers baa lagu dhiibay. waxaa laaliya waxaad adduunka ku haysoo dhan sideku doona ha ahaado. haddaad madax ahayd waraaqaad buuxinaysay, haddaad lacag haysatay waraaqaad buuxinaysay, haddaad faqiir ahayd waraaqaad nolosha dhammaanteed imtixaan bay ahayd aad ku jirtay. imtixaankaagaasi resultkiisii jawaabtiisii waxaad helaysaa baa lagu yidhi maalintaad qiyaamahaysa soo taagto ayaa lagu dhiibayaa jawaabtii imtixaanka. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu yidhi faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz. ninka qudha guulaysta waa kanuu baa rabbi yidhi. naar ninkii laga dhufto zuxzix, ninka naarta haf laga soo siiya laga ilaaliyo laga dorkiyo oo wa udkhila aljanna janna la geeyo, kaas baa ilaahay leeyahay faqad faaz. miqyaas ulfaws markaa waa kan. goormuu qofku guulaystay? wuxuu guulaystay markuu naar ka badbaado ee janno galo ayaa rabbi tilmaamaya. ama adduunka intaad joogteen waxaad guula ku sheegayseen oo dhami wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay ku xigsiiyey. nolosha adduunyo waxay ahayd bidhbidhka lagu kadsoomo. nolosha adduunyo gebigeeduba bidhbidh lagu kadsoomo bay ahayd baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. aayadda ku xigtaa ilaahay markaa wuxuu yidhi waan idin imtixaamaya. xoolaha nafta ayaan idinku imtixaamaya. gaaladaa laydinku imtixaamayayo ahlu kitaabka iyo waxaa la mid a war badan iyo mushrikiintaba adan kaiiran baa ka maqli doontaan baa ilaahay yidhi. wax badan oo idin dhiba adyad badan baa nimankaa ka maqli doontaan baa ilaahay yidhi. wain tasbiruu watataquu, sabirkii taqwada loo baahnaa haddaad la timaadaan waa casmi lumuur baa lagu tilmaamay. idan ayuha alikhwa alxayaatu dunya tantahi bilmowt. nolosha adduun wuu dhammaanaysaa, geeraana ku dhammaanaysaa. maqza alxayaa markaa waxa weeyaan huwa alibtilaa. tanaynu ku nool nahay barboska danta laga leeyay waa in lagu itixaamo. tabaaraka aladii biyadihi lmulk wa huwa calaa kulli shayin qadiir
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بإلهي أيكم أحسن عملا أدونك وابتلاء إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا أدونك وحلوها يوردم وامتحان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أدونك امتحان وحانتكم امتحان أنت وحاد قبرش أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى وحانا لقوه اتحاميا امتحان كالرسم قاهي وبالعبادة تكليف واقع وابتلاء لكن هو ابتلاء بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ابتلاء سيادك وجهك دون يحقوه ماضو قرآن كإلهي لبن النبي بك ورمك لبدا النبي باسكو صفة الله شاقة لكن قرآن كل لبدا النبي وحي نوغا شاقة ووحك لدرقصا نبي سليمان نبي سليمان قرآن كي قصص كيسا مدن ما مغشه يدو لغا ورميه إنو بقرها وأفف بدن قرنيي وقرآن شدو وحيكو هاد ليسا قرنيي ومنطق وطير شمبروه وحيكو هاد لان قرنيي وشينك الله سخري كوا بدا قوسي كوا مالك لو بودبا بلا كوا لا أقون تما أنت الدنيا ده تعلق سريسة وإن عرش بلقيس لقى قاضو صبا وفلسطين لقيه والبرقسية اللي جاية تكنولوجيا الدنيا ده ما أنت ما أوده تكنولوجيا الدنيا ده ما أنت وح أوده عد إن البرقسية اللي جاية هذا الكاغا ملي سكندز هي الدنيا ده طرف كذا كله لكن سمع عدا يهرت online تطوره ويانا as a signal or electron لو طوره حاجة كلا عندي كمان receive قرين كرتو تكنولوجيا أول ما هينه لكن نبي الله سليمان الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيكها محيري قبل أن يرتد إليك طرفك عرش شبابك لقت طوره حاجة كلامك صار داعي أنت أنا البرق سجاجو أو تكنولوجيا أنت اللي جوا هيستي بل إلهي وحكبري ملكا لا ينبغي أحدا من بعدي بقرطويان أنا قد ضبضي عندما والله يتحامل امتحانك يهرب وحو أركي إن أنا آدو قولي سنبو استريسيين ورن كرنا هدو إريقو صح نغضو وهو مركو لها إني أحببت حب الخير عندك فرده يوحي يا بهديسين ووقتي عبادين يرنا في السياق لو يريب هذا جب ودب جورجورة مركز إلهي وحكد البضي امتحان كان كوين إلا ماريو وأمرك لا ينبغي أحدا من بعدي نبي سليمان كوحا صورنا أكتيس الله دقي وقوليستي إلهي محكس فيه نعم العبد وورث سليمان وورث داوود سليمان من يده سورث سليمان داوود ماي ووهبنا داوود سليمان نعم العبد إنه أواب إلهي نبي داوود سليمان ما نصير نبي إلهي ده بتنام حالي نعم العبد هي إلهي كتل ماما أواب إنوها هي نعم العبد أوكي نرشي إلا ابتحامي يوكو قوليستي وحلا سي درجة نعم العبد قرآنك وحكا ورمي يا نبي كلا نبي كلا وح كلو إلهي قرآنك كشيء ما شرته إلهي إنه بكيو شيفي مو يعني نبي الله أيوب قرآنك مالك استعد كو أركته بكاء ما لقى ورمي سنة النبي محمد حادثة علماء السؤال وريا واحد تلمام يسا طبعا هي سدات سنودود إنه بكيو شيفي أو حنوسانية ولا نعي السيرة إلهي محكول سفي إنا وجدناه صابرا حكو حقا نعم العبد إنه أواب سليمان وقول استبال إلى نبي سليمان نبي أيوب وقول استي لبدو ده امتحانه والله امتحانه كلا نوعه مد بيج كسياسة ده يملك يا ماملك يا حولها اللي ديبي كاس على وقت حامة
dabeetana wadadii taa laga rabay buu mariyey dhan inuu islaamiyo dad dhan inuu diinta soo wixii laga rabay buu fuliyey waxaana lagu sifeeyey nicma alcabdu innahu awaab ayuub isaga inta quraanku inooga sheegay waa la itixaamay lafihiisaaba lagu itixaamo isagu xanuun iyo dhib uun baa ku dhacay waa jiifsaday waa la wada nacay waa laga tegay halkaasuu jiifay inni masariya shaytaanu halkaasuu ilaahay bariyey ilaahay wuxuu ku sifeeyey isagana inna wajadnahu saabira nicma alcabdu innahu awaab idan hadafka kama dambaystii waxa weeyaan ma xaqiijisay ilaahay addoonnimadiisii ha huwa imkaaniyaadka ilaahay ku siiyey ku xidhanta imtixaanku dadka bar baa u haysta in khilaafo la dhiso un inaynu ku imtixaaminay kuma imtixaamin ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay laa yukallifu allahu nafsan ila ma aataaha baa la yidhi nafna ilaahay ma itixaamo wuxuu siiyey mooyaane inta laguu dhiibay adiga nolosha lagaaga soo beegay beyjka ma dooratid ilaahay baa doora inaad madax noqon iyo inaad miskiin noqon inaad maalqabeen noqon iyo inaad faqiir noqon adigu beyjkaa dooran maysid laakiin adigu waxaad dooranaysaa saad u maamulaysaa beyjkaaga jawaabaha imtixaanka marka laguu dhiibo maxaad ku qoraysaa waxa aad ku qoraysaa baad ama ku faa'iisaysaa ama ku dhacaysaa labadaa nabi quraanku uu tilmaamay labadaba ilaahay wuxuu ku sifeeyey nicma alcabdu innahu awaab labaduba waa guulaysteen midi wuxuu ku guulaystay inuu bukaankiisu ku safro oo ilaahay daacad ugu ahaado saa quraanku inoo tilmaamay midina wuxuu ku guulaystay dhan inuu hogaamiyo oo jin iyo insiba leh oo shimbir iyo xayawaanba leh oo ciidamo ciida ka badan u wato walidaalika ayuha alikhwa cibaadaynu imtixaan ku nahay cibaada ayaynu imtixaan ku nahay inaynu ilaahay caabudno cibaadadu waa min alfitra qofka bini aadamka ahi laakiin liman tuwajah baa meesha taallown yaad u jeedinaysaa xaggiisa dadka badh baa hawadooda caabuda afarayta man ittakhada ilaahu hawaa ayaa ilaahay tilmaamaya waa min alfitra walidalik baa taarikhyahanada plutarch taarikhyahankii greega hore baa waxaa laga sheegay wuxuu yidhi qad wujidat fi taariikhi mudunun bilaa xusuun wa mudunun bilaa qusuur wa mudunun bilaa madaaris walakin lam tuujad abadan mudunun bilaa macaabid buu leeyahy taarikhda bini aadamka marka la baadho inay xafriyaad qod meel kasta samee waxay yidhahdaan waa la helay magaalooyin aan qalcada lahayn ama qusuur iyo daaro waaweyn lahayn ama iskuulla ku olin laakiin magaalo meel lagu caabudo aan lahayn lama haya bay leeyihin dad waliba amaakin lilcibaada fi taarikh waa joogaa walidalik ba isaga laftiisa mar kale wuxuu tilmaamayay ina madinatun bilaa ardin taquumu calayha ashal min qiyaami dowlatin bilaa ilaah buu lahaa magaalo aan dhulba laga dhisin dhulba loo haynin lagu yidhaahdo dhis ayaa ka fudud buu yidhi dowladaan diinba lahayn in la yidhaahdo dhis noloshu aynu joogno waa imtixaan imtixaanka waxaa guulaystay ninka sidii la rabay uga jawaaba miqyaaska guushuna waa faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faas qad aflaxa man zakaaha waman yutic illaha warasuulah faqad faaza fawzan cadiima miqyaas waa kaa miqyaasku maaha intaad xoolo yeelatay maaha inta aada maamushay maaha intaad magac iyo maamuus yeelatay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo meel joogaa saxaabadiisii qola soo maray nin baa soo maray ma ra'yukum fi hada buu yidhi marka waa ninkaasi muxuu idin leeyahay bal ka warrama waxay idhahdeen ninkani waa min ashraafi innaas hada wallahi xariyun in khataba an yunkax wain shafaca an yushafac waxay yidhahdeen ninkani waa dee duqeyda magaalada odayada reerku ka mid yihi wuxuu mudan yahay hadduu ergo galo in ergadiisa la aqbalo hadduu gabadh doono in loo guuriyo yacni waa nin warkiisa hadduu hadlo bay yidhahdeen in la dhegaysto saasuu mudan yahay nabigu iska aamusay calayhi salaatu wasalaam mid kalaa soo galay meeshii soo maray markaasuu kii kale yidhi maa ra'yukum haada warkaasna bal ka warrama muxuu idin leeyahay waxay yidhaahdeen kani ilaahay rasuulkiisiiyo waa min fuqaraa'i lmuslimiin de kani waa wax mahaysatada muslimiintu ka mid yahay hada xariyun in khatab an laa yunkax wain shafaca an laa yushafac wain qaala an laa yusmac bay yidhaaheen dee ninkani waa iska masaakiinta ilaahay meelaa iska marmaraysa buu ka mid yahay
hadduu war sheegana nin cidi dheg u taagayso dhagaysanaysa ma aha hadduu reeraa gabadh weydiistana nin loo guurinayo ma aha hadduu erga galana ergadiisa cidi dhagaysan maysa bay yidhaahdeen nabigu wuxuu ku yidhi markaasi hada khayrun min mil'i lardi mithla hada kaasi buu nabigu yidhi wuxuu ka khayr badan yahay dhulka muggii oo kana idinku ammaanaysaan dunida muggeedoo kaasa kaa miskiinkaabaa dhaama xadiiska bukhaari wariyay muslimkana waa ku yaala xadiidkaasi saxiix ahi waxa uu tilmaamaya dunida muggeed oo ashraaf ah oo magacyo maamuus leh miskiin ilaahay caabudaa isku dhaama baa la leeyahy waayo maqaayista bini aadamka lagu qiimeynaya lagu kala gedisan yahay miqyaaska dhabtee markaa wax lagu qiyaasaa wuxuu yahay nabi maxamed baa wuxuu yidhi ruba ashcatha madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi laa barah xadiidka saxiixu muslim ku yaala ruba ashcatha nabi maxamed wuxuu leey badan mid timihii boodhaysteen ama basaasaysan yihiin oo madfuucin bilabwaab ah albaabada aan laga furin dan cidi ka lahayn laakiin low aqsama cala allahi la abara waxaan jirin hadduu ku dhaarto idhaha wallaahi baan ku dhaartay saasay noqonaysaa ilaahay dhaartiisa u rumeeyo ay sidii noqoto low aqsama cala allahi la abara ilaahay baa dhaartiisa u bir yeelaya hadduu dhaarto idhaha saasay noqonaysaa sidii alla ka dhigaya buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ayuha alikhwa qur-aanku wuxuu inooga warramayaa qisaska qur-aanka waxaa loogu talagalay inaynu ka cibro qaadano qolo qiimeynaysa nin dadkii ay la noolaayeena oo abhadiis iyo isla weynidiis iyo wixiisii muujistay qur-aanka waxaa ka ramaya qaaruun oo soo baxay qaaruun waxaa laynagu yidhi qasnadihiisa lagama warramine furayaasha qasnadaha ayaa cusba min annaas aanay qaadi karin baa la yidhi guruub dada furayaashiisa ma qaadi karaan maaha adduunkiisa ninkaasaa wixiisii isku sharaxay oo macrad buu dhigay uu kusoo bandhiganayo abhadiisii iyo wixiisiibuu soo bandhigtay isagoo meesha maraya dadkii markaa way eegeen ninkan iyo quruxdii iyo waxa ka muuqda iyo xoole iyo nimca wuxuu haysto ilaahay wuxuu leeyahy qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya kuwii nolosha adduun doonaya hadafkoodii maxaa laga dhigay qolada tan ahdaafta bini aadamka ku kala baxaa ninka hadafkiisu yahay inuu beriis xoogsadaa dee qiimihiisu waa beriis ilan wuxuu noloshaba siistay habeen iyo maalinba wuxuu usoo jeeda waa inuu beriis helo marka noloshiisa waxay la qiimatay beriis ninka hadafkiisu wax kale qofka bini aadamkii ahdaaftu u nool yahay buu qiimaha noloshiisu noqonaya qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya baa ilaha yidhi kuwii nolosha adduun doonaya waxay yidhaahdeen yaa layta lana mila maa uutiya qaaruunu inahu laduu xadin cadiim bay yidhahdeen bal ma nala siiyo yaa layta jeclaan lahaaye bay leeyihin ama allamaanu hello waxa uu haysto qaaruun oo kale qaaruun bay yidhahdeen waa nin nasiib weyn ilaahay qolo kaluu tilmaamay mawaasiinta kala gedisa bini aadamku wax ku qiimeynayo wa qaala aladiina uutuu lcilma qolada tan ilaahay wuxuu ku tilmaamay asxaabu lcilmi expertska inay iyagu yihiin kuwii cilmiga la siiyey kuwii hore maxaa la yidhi yuriiduuna alxayaata addunya sifada wasfiga ay leeyihiin waa nolosha adduun baa hadafkoodu ahaa qoladan dambe sifada ay leedahay waa maxay wa qaala aladiina uutuu lcilma baa ilahay yidhi kuwii cilmiga la siiyey waxay yidhaahdeen waylakum waar hoogiine ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إذن ذلك آخر إلا به وأحسد بن آدم كو بديه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وبشر كسدو بديه dadka nolosha intay ka arkaan ay intan sokatay adduunkan uma arkaya qiimeyntooda ugu weyn ay noqoto waxa adduunkan lagu qiimeynayo. wallahi ninkii hebela rag buu dhalo soo saar haye laba engineer iyo saddex dhakhtar bay raggii noqdeen
qiimayntiisa dhakhaatiirta iyo injineerada iyo inta tan waxa laga yaabaa 3 injineer aan kubkooda waysa marin inay laakiin isaga way la weeyeen ilaa ninkii dhakhaatiir iyo injineero waayo dhakhaatiirta iyo injineerada maxaa loo qiimaysanaya lacag bay helaan weeyaan haddii suuq xaadka lacagtu ay qaali ahaan lahayd isaga la isku amaani lahaa ilaa lacag baa la raadinayay injineerka lagama barakaysto iyo tabiibka toona walidalik bini aadamku wuxuu hadaf ka dhigtaa bay ku xidhantay ilaahayna qiimaha dunida weyna siiyo waxay leeyihiin wama alxayaatu dunya illa mataacu lghuruur baa ilaahay yidhi yaa ayuha annaasu ina wacda allahi xaq falaa taguranakum alxayaatu dunya walaa yaguranakum billahi algharuur wardadow baa la yidhi ilaahay wuxuu yaboohay waa dhab ee falaa taguranakum alxayaatu dunya nolosha adduunya yaydin kadinin baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala nolosha yare adduunya ha ku dawaqina rabbi wuxuu leeyahay isagoo qiimaha adduunina baraya wamaa hadihi alxayaatu dunya ila lahwan walacib waina daara alaakhira lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun adduunku ma aha baa la yidhi cayaar iyo lahwi lahwiguna waa cayaarta dadka waaweyn oo lacibkuna waa cayaarta kuwa yaryar adduunku wax lagu madadaasho iyo lacab mooyaane wax kale maaha baa la yidhi ee daarta aakhira baa ilaahay yidhi ayaa nololi jirtaa haddaa wax garanaysaa aakhiriya adduun haddii laysu eego ilaahay wuxuu leeyay aakhira marka la yimaado kam labistum fi lardi cadada siniin baa dadka la weydiin doonaa waa dunida intii ay joogteen ka warrama qaaluu labithnaa yawman aw bacda yawm fas'al ilcaadiin bay leeyihin maalin ama maalin barhkeed baanu joognay ciddii wax tirinaysay hala weydiiye bay leeyihin ilaahay baa waa loo jawaabo waxaa lagu yidhaahdaa in labistum ilaa qaliila kama foga saa sheegaysaane wax yar baa joogteen baa la yidhi in labistum ilaa qaliilan in yar baa joogteen low annakum kuntum taclamuun markaasaa lagu xigsiiyey afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun iyo aayaadka kasii dambeeya adduunka guushiisaan sheegayna rabbi wuxuu ka warramayaa muslimiin guulaystay adduunka kan qolo ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna billahi warasuulih watujaahiduuna fi sabiili illahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun war kuwa mu'miniinta ha uma idin tusiyaa baa rabbi yidhi tijaaro business cadaabka lagaga badbaado ilaahay rumeeya iyo rasuulkiisa ilaahay dartiina u dirira naf iyo maalba saas baa idin khayr badan baa la yidhi haddaa wax garanaysaan sidaa haddaa samaysaan ilaahay yakfir lakum dunuubakum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم بإلهي هذا صدا يشان إلهي دم بيجن نضافيا جنة ويدين جينا يا يبيره هوستيد وبيال دريريان يجريو في عن يبيره نجادله تبتني إلهي وحولي ذلك اسم إشارة واحد ركسر لغة الماما لغة الماما يعني لشرفها بي بعيد طيب ذلك الفوز العظيم بإلهي كاسي والليبان توين بإلهي كاسي والليبان توين وحكى لنا إلهي وصينا يا بليل وحكى لنا محل وشاب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب يدا لغمضر ذلك الفوز العظيم فكما ترسل فوز العظيم كي حقا سقوط ماضي أما وحاليدين باليري وأخرى تحبون متكلوا أتشعشهم باليري وأم حيكن كلا ينوشع الله وين رجالك كحق بضنا نصر من الله وفتح قريب قال كان هنا كحق بضتان وحنا فرطان تانا ولا يكون دري باليري إيادو مركا لغو مدرين إنه كم تهاي محي قوشة ينكو الرميني إنا يقوشة وين وحبضا كاهم بان فتوسي قرآن قولك لو كورما wuxuu ka warramay qolo mu'miniinoo la gubay mu'min la gubay ma guulaystay mise ma guulaysan
بمقياسنا دواب اللقوي سماها إلهي وحكى ورمي في سورة البروج dad mu'miniina oo nin boqora oo dictatora oo kibray intuu helay yidhi anaa rabbigiina oo ay diideen yidhi war anaga ilaahay baa noo rabbiya oo intuu godod qoday dab ku shiday midhmidh ugu guray dhammaantood godkaa ku idleeyey oo sunnada nebigu waxay warramaysaa dadka sidii loogu gurayey ayaa qof dumar oo umul oo ilmo yar wadata isa soo dul taagtay ilmihii bay u naxday حديث النبي محمد وحشيقي وكوي عليه الصلاة والسلام دورك قف يران تلقى هديو كمدها المه يرابها الله وحوري هوي اصبري فإنك على الحق هو صبر حقك الصغطية إسلام دينا وقت كيستي كوي لقبي يراكو بيرت ولا ودا قبي دتك قال لقبي مركو قرآن كور رمي في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود إلهي بصوضي وحلقوا قبقبية إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا كوي مؤمن كي مؤمنات كبا قبي امتحامي أنت وبتكين إلهي الباب كيس بالكور داد كيسين تلا يقولي توبدوا وقولي كوي داد كمريي أنت وبتكين با إلهي يقولنا عذاب حريق ما إليه عذاب حقوبة كوي لقبينه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير بإلهي والله سنة وحيل هذا جنوين هوستة بيردرير لكن ذلك الفوز الكبير بإلهي قل هذا هو محل يلي ذلك الفوز العظيم قل هذا تنا محل يلي ذلك الفوز الكبير قوش ويني واتاس بإلهي قوش كبير كاهي وقول استين maxay ku guuleysteen miqyaaska wuxuu ahaa faman zuhziha 'ani an-naari wa udkhila al-jannata faqad faz buha samaha miqyaaska dhabtahay adduunkii ha ka yimaadaan adduunkan waa dhimanun ama ha lagu gubo ama sariirtaada ku dhimo ama xabada lagu dhufto ama god ku dhac waa dhiman saad u dhimanayso ba kala gadisan laakiin you will die ugu dambayn waa dhiman أما مقياس كردبته هي وحويان مركا ديماتو حاجات وكعيسة أدون كان أنت أدنى شواد التحامنتي أداد حول لاذي أداد مقع لاذي أداد ماموس لاذي أداد مسكين تاهي أداد وحجر قفل بوي امتحامية وحي لقسيات كوي تحامنتي جواب تتكبعيسو مشاكل باطي مصابر باطي هذا كوتا الله هدي بيتك هذا صوبح ما صبرتي هدي بيتك أنا معدي صوبح ما مهد نقضي هذا كوتا الله وهذا امتحامنتي waxaan oo dhamaa wada imtixaan dadku baa labada imtixaan kala jecel laakiin inta badan imtixaanka adag baa dadku rabbi u soo noqda imtixaanka nicmada ah inta badan dadku rabbi ba waa ilaaba kalla inal insana la yatgha warma an ra'ahu istaghna ba ilahi ku tilmaam inay tari guultay maxaa tilmaamaya saxaabadina saasi u arkayeen نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيها كوحي وتمي عربيت نمن عربيت باويمي دبتنا وحيد هذا نوان وسلامينا نحن ربنا إن عدنا قدرته عدنا قدر سوحر ربنا بين الرجال يعلمون ضدنا برا القرآن والسنة نبي عليه الصلاة والسلام تضباطا صحابة كمدة والقرآن نمن كيلو شريه وأنس ابن مالك حديث كورينا يا أبتجو كتشرو حرام ابن ملحان وكتشرو أيو نبو كضري تضباطا كان ينوار رجي كوعان كاها هبين كينا ينا القرآن كأخريان وبرتان وإسبران مانتينا انت يبحان بيا مسو حابي سنشرين بيها مساجد كيسودا مانتينا وشقين شرين هبين كينا دد عبادة استو وحبرتا بيا حان شرين حابدي وحان انت يسو قرآن اي ايبيان أهل الصفة ضدك يا مساجد كيسكت جوجان وحبها يسبب يجا قودية لما كان وحبها يسنة حافظ صقورية أي أهل الصفة قودية نمن بيهاين أدون كنا حوك سده آخرنا عبادة استه دين تنصف في عن أبرتا ماشى جوجا تضباط الرجع كم بدون نبي وقدره وحيري قال ذا وتجا وضدك الدين توصل شيء إحدى مركي مريم بقى قبائل عربية وكلاه nimankii waa la qabqabtay waa la laayay
ninkii ka mid oo waraaq sida oo ninkii madaxda ahaa isla waraaq u dhiib ayuu yidhi waraaqdan baa nebi maxamed ii soo dhiibay mid buu xagga dambe uga diro wuxuu yidhi waran xagga dambe ka geli waraaqdii markuu isyidhi u dhiib ayaa midi xagga dambe ka yimo warankuu xagga kale uga saara ninkan waa la khiyaameeyey gaalaana khiyaamaysay waana la dilay muxuu ku dhawaaqay markaa xadiidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy fuztu warabbi lkacba buu yidhi walee guulaysti waaba lagu dilo lagu khiyaameeyey xaggeed guulaysata ninkan waa gaal baa dhakray khiyaameeyey waa la dilay haddana wuxuu ku dhaaranayaa fuztu warabbi lkacba buu leeyahy rabbiga kacbada alaan ku dhaartee waan guulaystay waayo wuxuu arkayaa hadafkii nolosha inuu xaqiijiyey waxyaa ilaahay soo dejiyo nebi maxamed loogu sheegay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi saxaabadiisii walaaladin waa la dilay wainahum qaaluu waxaanay lahaayeen allahuma abliq cana nabiyana ana qad laqaynaaka faradaynaa cank waradita cana ilaahu nabigeygii waxaad gaadhsiisaa inaanu kula kulanay oo aad raalli naga noqotay annaguna aan raalli ka hadnay warkayagaa inaanu guulaysanay ilaahu u sheeg bay leeyiin qoladii naga dambeysay nabiga gaadhsii saxaabadiisi ay soo ogaato hadafka dhabta ee uu nolosha laga leeyahay waxa weeyaan in cadaab laga badbaado jannana la galo qofkaasaa guulaystay walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam baycat alcaqaba markuu saxaabada la galay alcaqaba thaniya bayc alcaqaba thaniya heshiisyadii uu la gelayay ansaarta u timi meel xajkaabaa la isugu yimi waa la wada hadlay ballan baa lala galay ballankay nabiga la galeen muxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ballan kula galeen waxay naftooda iyo maalkooda iyo caruurtooda ka celiyaan inay nebi maxamed ka celin doonaan keen gacanta baa la yidhi saxaabigii ugu yaraayo la socday ascad ibnu suraara yidhi waar jooga war waa iska hubiya waar barrita idin wax ka bedeli doontaana hubiya maanta weli ballankuma jirtaane saxaabadii la socotay waxay dhahan war inan yar baa tee iska dhow meesha waa ninkii ugu da-yaraaba wiil yar baa tee ka banay baa la yidhi saasaanu nebiga ballan kula galnay maxaanu anana leenahay baa la yidhi nebi maxamed muu odhan aniga dabaday baa madax noqonaysaan wasiiraan idinka dhigaya dowladdaa wax ka qabsanaysaan magaaladiina caasimadda waddanka noqonaysa midna kuma odhan muxuu ku yidhi lakum ljanna buu yidhi waxa ay ballan qaadeen haddaa fulisaan laa dowladnimo walaa waa guulaysanaysaan walaa cid ba iska dhicin doontaan walaa magaalo madaxdaa heli doontaan waxba looma sheegi kale waxaa la yidhi waxaa leedihiin janna leedihiin hadafkiinii baa gaadheen waxay dhahaan soo taa gacanta marka waa kula ballamaynaa mar haddii arrinku yahay janno waa qaadanay bay yidhahdeen oo ballankaan kula gelaynaa ilaahay subxaana wa tacaala intuu janno sifeeyo wuxuu leeyahay ina hada lahuwa alfawz alcadiim limithli hada falyacmal alcaamiluun baa ilahay yidhi ina hada lahuwa alfawz alcadiim kaasi baa ilahay yidhi waa guusha weyn ee limithli hada falyacmal alcaamiluun kaas uun ha u shaqaystaan baa la yidhi cidda rabta inay shaqaysataa amaa cidda khasaartay ee khasaaraha ku dhacday qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan lmubiin baa ilahay yidhi qul dadka waxaad ku tidhahdaa baa ilaahay leeyahy nabi maxamed oo dadka waxaad u sheegtaa calayhi salaatu wasalaam ina alkhasiriin aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalik huwa alkhusraan lmubiin kuwa guuldaraystay waa maalinta qolada hoogtuunbaa guuldaraysatay maalinta qiyaame ee qolada hoogta ayaa guuldaraysatay khasaaro cadna kaasaa ah waxaan leenahay nebiyada dhammaantood way guulaysteen laakiin qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa nebiyadaa guulaystay qaar waa la laayay oo qur-aanku wuxuu sheegayaa nebiyo badan oo la laayay qaarna way
xoog bay yeesheen oo ummad badan baa raacdo dowladay dhiseen oo caynkaasi laakiin waxaasoo nebiya bale nebiyadaasi qaar baa waxaa la tilmaamayaa taariikhdu ay sheegtaa inta madaxa laga gooyo in dumar xun loo hadiyeeyey waa nebi madaxii waxaan maanta aynu dhacdo dunida ku arkaynaa taariikhda bini aadamka hore usoo wada mareen maaha wax cusub taariikhda bini aadamku mararka qaarkood baa la yidhaha waa bayjaj soo noqnoqda un waxaan oo dhan horaa loo arkay nebi la dilay nebi madaxa laga gooyey nebi la xabsiyey nebi la xidhay iyo nebi la raacay nebi guulaystay nebi xoogaystay intuba taariikhda way soo mareen qur-aankuna intaba uu ka warramaya reer banu israa'iil maxaa lagu tilmaamaya fariiqan taqtuluun waa ambiyo ayaa la leeyahay qaybna waa disheen qaybna waa beeniseen nebiyada caynkaasiya fariiqan kadabu wa fariiqan yaqtuluuna ilaahay ku tilmaamayo waxaan leenahay dhammaantood waa guulaysteen waayo hadafkii ay u noolaayeen bay xaqiijiyeen qofku inuu dhintaa wax weyn maaha qof waliba uu dhiman laakiin waxa weyna hadafkaad nolosha ka lahayd inaad garato qur-aanka waxaa ku soo arooray marka ee fawzka ka warramaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dhowr iyo 10 aayadood oo kala gedisan bay kusoo aroortay dalika alfawz alcadiim iyo dalika alfawz alkabiir iyo dalika alfawz almubiin 13 aayadood oo qur-aan dalika alfawz alcadiim bay kusoo aroortay hal aayadina dalika alfawz alkabiir bay kusoo aroortay laba aayadoodna dalika alfawz almubiin bay kusoo aroortay 16 aayadood ee alfawz alkabiir alcadiim almubiin kusoo arooray 16 kuba aakhiray ka warramayaan iyo janno 16 kuba waxay sheegayaan guul qur-aanku uu ku sheegay waa qofku faman zuxzixa cani nnaari wa udkhila aljanna markuu tago ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati lahum jannaat tajri min taxtiha alanhaar dalika alfawz alkabiir baynu soo maray قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين صدح دا آيات بلبنا مبين كسو أرورت مدينة كبير كسو أرورت أما وحا كلونا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم waxaa aayad qur-aanka kusoo arooray 16 aayadood ee alfawz kusoo arooray ama cadiim daba taalla ama kabiir daba taalla ama mubiin daba taallo intuba jannay ka warramayaan markaas ku dhaal la guuleystay erayga fawzka iyo mushtaqaadkiisa waxa ka dhambalmo oo dhami 30 meelood buu qur-aanka kaga soo arooray lafdul fawz iyo mushtaqaadkeedu 30 meelood bay kaga soo aroortay 30 afar meelood ka mid ah alfaa'izuun ay ku soo aroortay afarta meelood ee alfaa'izuun ku soo arooray ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay alladheena aamanuu wa haajaruu wa jaahaduu fi sabiilillahi bi amwaalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaa'ika humul faa'izuun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'iimun muqiim khalidina fiha أبدا إن الله عنده أجر عظيم موضع اللباد إلهي وحلي إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله اللي قاري إلهي سبحانه وتعالى موضع صدحات وحكوت المامية إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أفرت آيادود فائزون كسو أرورتنا أفرت وجنة كورمية إذن قرآن كهداد دبغو النغطة قول ربي أوشيغي رب السماوات والأرض باينو شيغي قوش محيطي سكسس محيطي نجاح فوز قول قهر مقفكو قانا وحو قانا قفكو مركو كو قوليستا إنو نارنا كبد بادو جننا وقلبو كو قوليستا أيها الإخوة ميلان لقا قبوبي والله قد ماني والله قواري أو واحد دونتاد هليس وحتى من ندبات هليس أو واسع وجنة أدونك النولشيس منقصاتك وحيابها قرارية مويدو بعد حوشين مركي حولوك وقبطان أيوم بعد دان كان لقا قاضي ودختروما كوران كان عون كانها عبين كان عين كان لا سلامة له وادي يرانا حوق بدنانا وحول بوادلق كاريسا وحد لقدام وادواي أدونك وسكر نوعاون أدونك أنت تشوكتو هذا امتحان تيو اسكودا ما لقا مهله ماشي اللي قوليستو مركا لا تغو وآخره مقياس كدبتين الله شنو واكا لكن دتكو مركي بلشو أن لسكو دين هنا الله نولات وبلشو كلا هدفتين الله نولات ودتكو دنا ميل ودا صعدونا دركتو أما حولا أما مقع أما وحود الرادينية halkay marka dambaadna istiraawar mala halkay ku jirtaa wala xagay ku jirtaa laakiin wuxuu u baahan yahay qofka muslimka ah maqaayis الحياة inaanay ka qaldamin waxa nolosha lagu qiimeeyo halkay baadil wada saacad arurta quraan u dhig saacadaad quraan ka dhigaysaa dad meel kale yoro shaqo ka soo hesho saacadii 30 pound 40 pound ay tahay mala halkan ingiriiska 40 kaba ma gaadhay halkay qofku inuu waran shaqo soo yara hela dib wadaad ha loo dayday quraan ka sii dhiga sababtu waa maxay 40 pound baa jannadii ka qiimo batay hadafkaagii weynaa aad u socotay 40 pound waxa laga yaabaa inaad aragto qof le sheekh dee shaqadii iyo salaadii iswaafiq weydo meesha lama ogola in la tukado baladii aan isku dardara ka waran yani shaqada kala xoog badatay salaadii maqaayisti ba qaldantay qofka bini aadamkaana hadii kalibarku kaalumo waxa wax lagu qiimeeynaya wax lagu miisaamayo wax lagu eegaya haduu kaalumo ka qaldamo nolosho dhan ba mulaaqmaysa qofka mu'minka dhabta ah waa inuu gartaa hadafka dhabta uu socda meeshii goortu khasaaro dhaba galayna inay tahay markuu naar galo guul dhaba goortu helayna inay tahay markuu janno galo walow hal gubane quraanku inoo sheegay kuwa la gubay وهدنا الله يري محي ذلك الفوز الكبير انت اللي قبي اي الهي لي ذلك الفوز الكبير وايو هدف الحياه بيكون استه نلش مركا هدف هيدين يالط نلش هدف كياش حقيقي نيسان هدف كان حقيقي نيسانها عباد wax kasto nolosha aad qabanaysa marka weynaad iska weydiisaa hadafkayga muxuu ka gooyaa intuu jaraya wax kasto meesha aad u socoto wax weyn ka taraya qofka binaadamka uu qaata mesela dadku inuu shaqo fiican wada helaa oo raadinaya marka sayd school galaysa jaamacad galaysa kan ka sii baxaysa kan ka sii waxa soo dhan waxaad u socotaa hadaf ama maxay shaqo mustawaheedu xadka ay sidaad u gaari lahayd waxa oo dhan u soo martay 20 sano wax barasho waxaad ugu jirtaa shaqo mustawaheedu ka yahay inaad gaadho كورن جنة مستوى هنا تقدم محي وباهنتي مركا شقا عين كيا لمثل هذا فليعمل العاملون بإلهي انتو جنة سفي تاس او كلمة الرب يلي عدي دوريسا او شقيسة تبالي عدي دوريسا او شقيسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بإلهي كوا نلاش الله ميا بنادم نلاش انو الله وكمت لكن حقيا الله ميا ما مدحنمدا ما لعقتا لولنكو waa xagee ilaahay intuu janno sifeeyay buu yiri wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun kuwa loolabaya taa hawl loolaban baa ilaahay subhanahu wa ta'ala
darsigani markaa wuxuu ku kooban yahay eray qura oo ah nolosha waxa lagu qiimeeya miqyaaska aan isla garanno. rabbaana inoo sheegay, wadaadna kama sugayno, cid kalena kama sugayno inay sharaxda qur-aanka si cad ugu taalla. ilaahay baa yidhi faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz. waxaan ilaahay ka baryayaa subxaana wa tacaala kuwii guulaystay in alla inaga dhigo. noloshan macnaheeda cidda fahamtay in rabbi inaga dhigo subxaana wa tacaala. hadafka nolosha ka leenayna in rabbi inoo saxo inuguna hanuuniyo. صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم شيخ مصطفى. السلام ورحمة الله.